intaana bilaabin muuqaalka waxaan iga mahadcelinayaa inaad maalin kaliya noo gaartaysin 600 subscribe taas wallahi waa guul weyn sidaas daraadeed waxaan isku dayaa maalin walba inaan soo dhigo muuqaal cusub iyo anime cusub oo ololkiisa macaankiisa wata maantana waxaan noo wadaa anime la yaab badan oo aad u macaan hordhacdeedii ma galayo fadlan subscribe saar like saar iminkana ay noo bilaabo sheekada animegeena waxay ku bilaabaysaa qaarad khiyaali ah oo loo yaqaano Gehodow qaaradaasna waxa ku nool nin xun oo loo yaqaano saaxirka midow oo ah mid saaxir dadka aad u dhabay markaas waxa jira kooxaas wax lagu magacaabo Pollinators kooxdana waxa hogaaminaya wiil lagu yaqaano Yuri wax bilaabay la dagaalan boqorkii waxayna bilowdaan in meesha qaraxdo markaas markay meesha intaas dhacdo ay meesha qaraxi ka dhaco ay dadku waxay malayaan in wiilkii Yuri inuu guuleystay iyagoo faraxsan oo boqorku ka guuleysanay ayaa waxa soo baxay boqorkii madooba isagoo wada wiilkii Yuri oo miir daboolan wuxuuna bilaabay inuu ku codsado mid kamid ah oo lagu magacaabo Fina inuu siiyo buugga sixirka loo yaqaan Sigilka markaas gabadhu wax bilaabay inay diido wuxuu bilaabay inuu qabto gabadhu garaaco una ka qaato buuggana wuxuu ka hadlayaa sida loo burburiyo ama loo dilo qof kasta oo rajala ama rajadiisa loogu ciyaaro wuxuuna rabaa inuu adduunka ku soo harin qof inuu rajaynayso inuu isaga la dagaalamo ama rajaynayso nolol fiican ku noolaado markaas boqorku wax bilaabay inuu kala gooyo buuggii intii kalena wuxuu siiyaa gabadha Fina intii kalena wuxuu bilaabay inuu ka soo saaro maadadii madoobe ee sixirka ciidankii Yuri uu hogaaminay wax bilaabay inay fahmaan inuu ka guuleysto boqorkii waxa dhacday inay jabaan markaas waxaan barayaa gabadh kale loo yaqaan Rihanna waxay hogaaminaysaa kooxdaas oo ah koox iyada u taliso gabadhana waxa dhalay boqorka caasimadda gabadhaasna waxa la socda ilaaliyaheeda kaas oo loo yaqaan Bark markaas wiilkii Yuri wax bilaabay inuu daba soo miirsado wuxuuna bilaabay inuu aado dhankii caasimadda si uu la kulmo boqorka Yuri markaas wuxuu ka dhex maqlay jirkiisa gudihiisa in lagu leeyahay waad guul dareysatay markaas la baray wiilka loo yaqaan Aram wuxuu bilaabay inuu caawiyo islaan waayeel ah wiilkaasna wuxuu muujinayaa awoodiisa iyo dhabta iyo xooggiisa intay gaarayso markaas Yuri kooxiisa waxay arkaan burburka ka dhashay maadadii madoobeed ee uu haystaninka boqorku ee dhanka samada ku sii daayay markaas boqorkii madoobe ciidankii u talinayay ayaa waxay bilaabeen soo weeraraan kooxdii miskiimaha ahaa waxaana ka soo gaaray wiilkii Aramna wuxuu bilaabay kooxdii gebiga kala dagaalamo isoo kaligiis ah wiilkaasna wuxuu adeegsanay awood loo yaqaan maanadaasna waa nuur waxaana dhacday awood ay daciifto sababtoo waxa sii fidaya awoodda midowga ah markaas wiilkii Yuri wax bilaabay inuu go'aansado inuu isdhiibo laakiin Aram ayaa ka diidaya Aramna wuxuu ka xadayaa maanada Bark kii Bark ee gabadha la socday miskiinka ahaa ay wuxuu ka xadayaa maanada ama awooddii maanada uuna la dagaalamay intii tamar ku jirtay markaas wiilkii Yuri wuxuu ku dhaahdaa adigu wadna soo dhex gashay magacaagu waa maxay markaas Aram intuu u jawaabay waxa dhayn miir daboolmo markaas gabadha Fina waxay keentay cunto Aramna waxa dhayn inuu cuntadii uu cuno oo ammaano ku dhaahdo waxa tahay gabadh wanaagsan Aram wuxuu dareemay inuu u baahan yahay awood badan si uu dadka u ilaaliyo gabadha Finana waxay soo saartaa buuggii Sigilka oo niski kale uu qasiyay boqorku oo in isagu qaatay waxayna ku tiraahdaa haddii uu buugga madoobaado waxa madoobaanaysa adduunyada oo dhan markaas wiilkii Yuri wuxuu bilaabay inuu aamino ku yiraahdo ruuxdii rajada weli kama taqalliso boqorku ee weli way nooshahay dhanka kale boqorkii madoobe wuxuu la hadlayaa shaydaanno loo yaqaan Lorraine oo ku saabsan inay faafiso midowga markaas wiilkii Yuri wuxuu ku yiraahdaa sababta uu rabtay in awooddaada u kordhiso waa maxay markuu hadalka weydiiyo wax la wiilkiina xanaaqo wuxuu ku yiraahdaa waxa igu soo biir kooxdayda markaas Yuri wuxuu bilaabay inuu ku soo biiro kooxda Aram waxayna bilaabeen soo dhaqaaqa dhankii caasimadda ama magaalada markii magaaladii tagaan waxay arkaanba boqorkii madoobe ciidankiisii oo haraareeyay qasrigii magaalada ama qasrigii uu deganaa boqorku markaas meesha waxa ka dhacay dagaal kaasi oo ah in laga difaaco qasriga kooxda mushayaadiinta ah Aramna waxa uu markaa la xadayaa awooddii maanada ahayd ee Bark lagu haystaninka Bark lagu magacaabay ee iftiinka ahayd wuxuuna bilaabay inuu kula dagaalamo kooxdii waxaana dhacay inuu ka adkaado Yuri Bark Mishi iyo Kane waxay bilaabeen isku dareen awoodooda waxaana dhacay hal daqiiqadeer gudaheed ay dagaalka dhinaca ku soo afkaraan ka guuleystaan kooxdii uu talinayay boqorka midowga markaas Aram wuxuu ka helay awooddaas wuxuuna ku yiraahdaa waxa rabaa inay isku ambarto isku dartay awoodaha markaas kii miskiinka ee lagu magacaabay Bark ayaa hadlay wuxuu ku yiraahdaa Aram waa qof naga duwan oo awoodo kale u haysta taasna waxay uma suurtagelinayso inuu awooddeena ku soo biiro ama noqono combined attack oo yacni awooddeena isku jiraan anagoo awooddeena wada haysana aan wax weerari karayno sidaan hadda u weerarnay kooxdii u talinayay boqorka midowga
markaasaa ciidankii madowga ahaa ee ninka boqor ku tirnayay ayaa waxay bilaabeen dib u soo laabtaan iyagoo laakiin marka hore sidii marka hore ka awood badan wiilkii yurin waxa dhahay inuu dhaawacmo markaasaa aaram waxa dhahay dib u soo xasuusta hadalkii yuri wuxuuna go'aansaday inuu soo laabto aaram wuxuu maansadiisa siinayaa qof kasta waxa dhahay inay ugu dambeyn ka adkaadaan kooxdii madowga ahayd markaasaa yuri dadka wuxuu sheegay ku yiraahdaa waxaa rabay inaan sameeyo koox cusub oo ka adkaan doonta boqorka madow markaasaa yuri iyo kooxdii waxay bilaabeen inay yimaadeen munaaradii ama qasrigii ay joogeen dadka xikmadlayaasha waxayna la kulmaan 3 qof oo xikmadlayaal ah yurina wuxuu ka qarinayaa 3 qof inuu ogaadaan maadada madow inay ku jirto jirkiisa oo dhaawacan yahay laakiin wiilkaas yuri iska soo qari awoodiisa waxa dhahay gacantiisa madoobato markaasaa aaram waxa dhahay inuu uga sheekeeyo ku yiraahdo anu markii aan yara waxaan qof tuuga waxaana rabaa inaan burburiyo kooxdan madowga sababtoo ah waxay burburiyeen tuuladayda wax ka wada xati jiray ayagna iga burburiyeen ana waxaa rabaa in maanta wax ka cadxado oo la burburiyay markaasaa yuri wuxuu barayaa wiilkii aaram sixirka dabka ah aaramna wuxuu helayaa seef tahdiyad ah markaasaa aaram wuxuu ku xusadaa baarak inuu tababaro laakiin wiilkan baarak uu necab yahay inuu la hadlo aaram oo maadaama uu necab yahay mana rabo inuu tababaro markaasaa yuri baa wuxuu ku oraadaa baarak tababar aaram laakiin baarak wuu diidaa markaasaa ninkii baarak wuxuu galaa keynta xaggaas waxay iskaga kulmaayeen shaydaamadii leerin loo magacaabay markaasaa shaydaamadii leerin loo magacaabay waxay ka faa'iideysanaysaa caradu uu cariisan yahay baarak iyo maadada madowga ku jirta jidhkiisa markaasaa boqorkii madooba waxa dhahay sixir ahaan uu soo galo maskaxda wiilkii wuxuuna ula hadlaa markaasaa wiilkii baarak waxa lagu sameeyay qasli dimaaq wuxuuna noqdaa ciidankii madowga wuxuuna weerar ku soo qaaday aaram laakiin yuri ayaa ka celinaya ka difaacaya marka laga adkaado waxa dhahay leerin iyo baarak inay ka baxsadaan goobtii markaasaa wiilkii yuri wuxuu la xiriiraa gabadha riyaano wuxuuna u sheegaa cadhadu ka cadhooday baar markaasaa riyaano way xanaaqdaa waxayna tiraahdaa suu baar ku cadhoon maadaama uu ahaa addoonkayga suu taas ugu dhiirtay inuu iga cadhoodo anigu iga tago laakiin ugu dambeyn riyaano waxay bilown iska cafiso ninkaas markaasaa waxaa keenay caasimadii oo gubanaysa waxaana magaalada gubay dad doonaya inay ku biiraan boqorka madow askartiisa ama noqdaan markaasaa riyaano waxay la kulantay walaalaheed markaasaa wiilkii yuri wuxuu bilaabay inuu dhaawiciisa daweeyo isagoo adeegsanaya buuggii sijilka laakiin taas ma awoodo oo sixirka ku jira buuggaas awood yacni uma laha inuu daweeyo isaga ugu dambeyn waxay gaaraan qasriga dadka xikmadlayaasha joogeen markaasaa ciidankii sixirka ku noolaa qasriga waxay bilaabeen inay tijaabo ka qaadaan wiilka yuri iyo kooxdiisa markaasaa waxaa dhahay meeshaas dagaal ka dhaco waxaa dhahay in dagaalkaasu sii weynaado markaasaa aaram wuxuu si xoog leh u siinaya maanadiisa aldorna waxaa lagu magacaabaa ninka sixirka madow masiirkiisa ah ama boqorka sixirka madow wasiirkiisa markaasaa waxaa soo baxay gabadh lagu magacaabo faadumo maaha yacnaa ina magaca iska soo qabsaha moodin in meyga gabadh ku jirta la yidhahda faadumo markaasaa gabadha faadumo lagu magacaabo waxay u sheegtaa yuri in ruuxii rajada ee ka hortegi lahayd boqorkan madooba shaydaanka ah inay ku jirto meel aan laga soo noqon karo hadduu qof ku galo laakiin waxay u tilmaamtay meel ka fudud oo laga gali karo meeshaas oona laga soo badbaadin karo ruuxa rajada markaasaa kooxdii yuri iyo dadkii xikmadlayaasha loranayay ayaa yacni waxay usoo dhaqaaqeen meeshii ay u tilmaamtay gabadhii faadun lagu magacaabay waxayna xaggaas ku arkaan baraf madow iyo ciidankii boqorka oo weli aan dhiman markaasaa gabadhii maariina waxay isticmaalaysaa sixirkeeda waxaa jira dad khaaridiina oo yacni aan dhimanayn oo weligood ka noolaanaya dadkaasi waxay ka dhigaysaa dad kuwa dhimanaya markaasaa waxay maqlaan qaylo yar waxayna yimaadeen meesha qaylo ka yaraysay waxayna arkaan makhluuq yaroo caddaana maasaa aaran ba wuxuu qaataa makhluuq yaraa wuxuu noo bixiyey magaca abuforwo markaasaa yuri aaran waxay ku dhacaan godkii barafka markay ku dhacaan waxdhayn meeshaas barafka ay ku xayirmaan markaasaa waxdhayn kooxdii kale inay u diraan koox kale oo ay ku leeyihiin soo baara bal wiilkii yuri iyo ninkii aaran meeshay ka dhaceen markaasaa gabadhii fiina iyo mariina waxay helaan seeftaasoo loo yaqaana seefta rajada markaasaa wiilkii yuri wuxuu arkaa hadh ama hoos kaasoo ka eedaynayna soo guuldaraystay oo kuleh maxaad u guuldaraysatay markaasaa aaram waxdha inuu xanaaqo wuxuuna bilaabin seefkii uu ku dhufso ninkii hooska ahaa markuu seefta ku dhufto waxdha inuu ninkii hooska ahaa isku bedelo askari madow oo ah ka tirsan boqorka madow askartiisa markaasaa wiilkii yuri iyo aaran waxay isku dareen awoodooda markii ugu horreysay laba awood uu aaran qof kale ku darsanayo waa waxa markan wayna ku guulaystaan inay ka soo baxaan meeshii waxayna yimaadeen oday xikmadyahana kaasi oo ah macallinkii faadumo wuxuuna ku odhanayaa waa inaad tagtiin jasiiradda ruuxyada sidaas soo heshiid ruuxda rajada ah markaasaa kooxda yuri waxay soo aadaan dhanka jasiiradda odag u sheegayeen markaasaa shoosa nin lagu magacaabo hor istaaga oo ah hogaamiyaha 9aad wuxuuna ka rabaa inuu ka qaato buugga sijiilka wuxuuna ku dhaha buugga sijiilka igu soo wareejiye wuxuuna rabaa inuu noqdo boqorka cusub wuxuuna ku dhahayaa yuri waxay ka guuldareysatay dagaalkii hore markaasaa wiilkii yuri wuxuu ku yidhaahdaa orlacar gabdha fiina odayga shoosa ama ninka shoosa lagu magacaabana wuxuu helay maadadii madoobeed waxaan dhahay in wiilkii yuri la dagaalama waxaan dhahay inuu ugu dambe u ka adkaa yuri ken iyo meeshii
markaas waxaa soo muuqanaya makhluuq weyn, makhluuqaas oo khatar ah oo loo yaqaano saada. markaasaa ninkii shoosta wuxuu bilaabay la dagaalamo saadihii ama xayawaankii saada lumay loo yaqaanay, isagoo muujinaya inuu kalsooni leeyahay. markaasaa shaydaamin liirin waxay isticmaashaa sixirkeeda, waxaana Kenya Fiina u ekaysiisaa askarta madow oo ah askartii uu talinaya ninka boqorka shaydaanka ah. waxayna rabtaa markuu Ken u ekaysiiso askartaas inuu wiilka Yuri uu dilo Ken oo saa ku geeriyooda Ken. markaasaa waxaa wiilka Yuri inuu murugoodo, waxaana dhacay inuu isku bedelo shaydaan ka tirsan boqorka madow. markaasaa gabadhi Rihanna waxay bilowday inay tiraahdo hadda waxaan nahay boqorad, laakiin waxay ku guuldareysatay inay shacabkeeda ka dhaadhiciso ku tiraahdo doorta yani waxaan nahay boqorade, fadlan caawiya oo boqorade ana waxaan idin ballan qaadayaa inaan idinka difaaci doono boqorka madow. markaasaa ciidankii Yuri u tilinaya waxaa dhahnay inay markay arkaan Yuri oo isbedelay oo isku bedelay askar ka mid ah ninka shaydaanka ah. markaasaa ninkii shooso xaggaas wuxuu ka helaa fursad, wuxuuna bilaabay inuu intuu ku jeejeeso ayuu wuxuu damcay inuu dilo, laakiin waxa kasoo hor istaaga makhluuqa nin sheegay saada lagu magacaabay, waxaana dhacay inuu ka difaaco. markaasaa Liirin iyo Yuri waxa dhacay meesha ka cararaan ka baxsadaan. markaasaa saaxiibada Yuri waxa dhacay inay ku tiraahdo waana noqonaa laba kooxood. Marina iyo Kenya Mishi waxay tegayaan caasimada, waxaana markan dhaawac soo gaaray Ken xaggaasna ku soo daweynaysay. Aram iyo Fiina waxay sii wadanayaan socdaalkooga ilaa intii ka gaareen jasiiradda ay joogtay ruuxda rajada. haddaba maxaa dhaawacay wiilkan Yuri? waxa dhaawacnaa nin sheegay saxaabay fadlan muuqaalka like saar. markaasaa gabadha Fiina waxa uu sheegtay Aram inuu Yuri dilay Dragon, waxaana ku yiraahdaa Dragonkaas wuxuu doonay inuu ka qaato wiilka maadada madow ama maadada sixirka madow. tan waxay ku tiraahdaa waxay u sababtay in wiilka Yuri uu noqdo dhaawac uuna isku bedelo shaydaan kamid ah shaydaanka boqorka. markaasaa Rihanna waxay go'aansatay inay la kulanto Shoosa la gashay heshiis, laakiin ninkii Shoosa uu diiday wuxuuna ku yiraahdaa ciidankayga kuma darayo heshiiskaagana kaama rabo. markaasaa gabadh milkii u magacaabay gabadhii Faadimo waxay helayaan awood cusub oo ka imanaysa seefta sajiilka. Aram iyo Fiina waxay gaaraan jasiiradda ruuxyada ay joogtay ruuxda rajadu, iyagoo meesha keynta dhex socda ama jasiiradda dhex socda ayaa waxay la kulmayeen jinniye ciidanka madow oo ah ciidanka u talinaya ninka boqorka shaydaanka ah. markaasaa soo baxay jinniyadaas oo caawinaya Aram iyo Fiina, waxaana sheegay in meesha ay joogto ruuxda rajada. markaasaa wiilkii Aram iyo gabadhii Fiina waxay gaaraan geedkaasna waxay ka helaan sijiilka ama awood kale ama sixir kale loo yaqaan sijiil. markaase waxay dhex galaan sijiilkii, waxaana rabaa inay ka dhex arkaan dhacdooyinkii hore meesha ka dhacay. sijiilkana wuxuu sheegayaa wixii dhacay dib u dhacay, waxay ka dhex arkaan ruuxda rajada goorta ay lumaysay. markaasaa Aram wuxuu ka dhex arkaa geedkaas ama sijiilkaas dhibaatooyinkii uu Yuri ku noolaa markuu uu yaraa iyo soo uu soo koray. markaasaa Aram wuxuu la kulmaa ninkaas wuxuu kamid yahay dadka xikmadayaasha ee sixirlooyaasha, wuxuuna ka codsanay inuu siiyo awood taas oo la dagaalamayo wiilka Yuri. markaasaa ninkii saaxiibka wuxuu ka yidhaahdaa awood kale ma lihi, laakiin waqtiga dib uga celinayaa waxaana la kulmaysaa wiilka Yuri, wuxuuna ku yidhahdaa waayahay waxaan dhacay inay kulmaan wiilka Yuri iyo Aram. gaalmaayo waxay maqlaan codkii ruuxa rajada markii ugu horreysay oo Aram maqlay weeye, taasna waxay calaamad tahay inuu soo laabatay ruuxdii rajada ee la dagaalami lahayd boqorkan madow. markaasaa Aram iyo Fiina waxay tagaan dooxada, waxayna xaggaas ku arkaan tanaaniintaasi dib u soo nooleeyaan, ilaahay ba wax nooleeyay. xaggaasna waxay ka arkaan qoraalkaas waa hees, wax badan heestaas qaadaan. markaasaa waxaan arkaynaa Shoosa ciidankii Shoosa u talinayay iyo ciidanka Rihanna oo isku diyaarinaya dagaal, oo labada ciidan ayaa iswaajahaya ama isweeraraya. waxaa dhacay inuu baalak uu dhaawac gabadha Rihanna ee marka hore u ahaa adoonka. markaasa waxa soo dhex gal Aram iyo taliyaha boqorka, waxayna bilaabeen inay kala reebaan labada ciidan. markaasaa gabadh abwaanada ayay wax bilownay heestaas oo ah furaha loo keenaya ruuxda rajada. markaasaa baalak wuxuu soo weeraray wiilkii Aram, markaasaa makhluuq yar horaan kusoo arkin abuufar lagu magacaabay ayaa wuxuu isku bedelaa tiniin weyn ama Dragon weyn. markaasaa Aramna waxa dhacay inuu la dagaalamo xayawaanka loo yaqaanay saada. markaasaa cadha Shoosa inuu u dhiibo buugii sijiilka Aram, waxaa dhacday inay midoobaan Rihanna ciidankeedii iyo Aram ciidankiisii. nin saaxir loo yaqaano milki ayaa wuxuu dhisaa markabkaasoo duulaya. markabkaasna waxay dan uga leeyihiin waxay rabaan inay difaacan ka hayaan ninka boqorka ee shaydaanka ah ee adduunka qasaya, waxay rabaan inay markabkaas kaga dhex gudbaan difaaciisa. markaasaa gabadha Fiin iyo ninkii Aldur iyo Aram waxay bilaabaan inay ku heshiiyaan ay dhahdaan Yuri wuxuu kamid ah saaxiibkeen, kadibna gabadha Lirena shaydaamad ahayd ayaa sixirtay saas inuu nooga fogaaday, waxaana nagu waajiba intaan dil lahayn isaga la dagaalaminahay waa inaan isaga badbaadino sixirkaas ka saarin. markaasaa ninkii Baarak ayaa xalan soo weeraray markabkii duulayay si uu qabso sijiilka ama awoodda sijiilka. markaasaa xara Baarak inuu weeraro markabkii, waxaana dhacday in dhibaato u geysto markabkii. markaasaa wiilkii Aram wuxuu siinayaa awood ninkii Aldor kaasoo ah ninkii waday markabkan. waxaa dhacay inuu markabkii awoodii markii la siiyay Aldur inuu markabkii aad u dhaqaaqo ka fogaado Baarak, laakiin Baarak intaas kagama dhaabahadin, waxaa dhacay inuu qabso sijiilka. markaasaa dhacay inuu Baarak uu dhinto, waxaana dhacay gabadha Rihanna in calankii ay taagato tiraahdo ninka waa iska cafiyey. markaasaa boqorkii madow waxa dhacay wiilka Yuri inuu diro ku yiraahdo or nooga soo qaad sijiilka Fiina, oo Fiina ay ahay markan sijiilka. kadib waxa Fiina inuu go'aansado
in naftiisa u huraysa jiilka uun sasiinso Yuri markaasa waxa dhacday inuu Fiina ula hadlo Milky wuxuuna ku sawiraya tattoo-gaas oo ah sixirka ka soo horjeeda maadada madow ama the dark matter waxa dhacday Fiina in naftiisa u huro buuggaas si uusan u helin boqorka madow markaasa Aram wuxuu ogaanay in dhibaatada ay ka timid gaashaanka madow oo uu xiran yahay Yuri wuxuuna fahmaa in awoodda dhan Yuri ku jirta gaashaankaas uu haysto Mishiya Kenya Marinana waxay bilaabeen inay caawiyaan Aram si uu soo qaado gaashaankaas una burburiyo Fiinana wuxuu bilaabay inuu buuggiisa jiilka ka masaxo wixii sixir ahaa oo ku reebay boqorka madow laakiin waxa dhacay inuu ku sigtay inuu geeriyoodo markaas waxa dhacay ninka boqorka inuu ku yiraahdo anigu waxaan ahaa ilaaliyaha jiilka markii hore laakiin waxaan ku daalay bini'aadamka xumaantiisa u geysanay buuggaas sidaas darteed ayaan rabaa inuu burburiyo caalamkan ugana burburiyo dadka bini'aadamka ku nool kadibna aan dib u soo dhiso si ay ugu noolaadaan dadkaas oo dhibaatay dambi sameeyay markaas boqorku wuxuu isku bedelay Dragon-kii Aram haystay waxa la dagaalamo boqorkii dhanka kale wiilkii Yuri caadi u soo noqday markii gaashaanka laga qaaday boqorkana laga adkaaday waxaan dhacay in Aram iyo Yuri isku daraan awoodooda waxayna ka adkaadaan boqorkii xaqaas ay ku dilaan boqorkii madoobaan wuxuu isticmaalaa sajiilka boqorkii madoobaan intuusan dhimanay waxa in wiilkii gabadhii Fiina uu badbaaday gabadhii Fiina nolosheeda markaas waxay indho ruuxi rajada waxaasna waxa laga taqalusay boqorkii dhibka badnaa ee dad fara badan kadeeday ee rabay inuu caalamka burburiyo intaasaan kusoo gabagabeynayna anime-geena fadlan dadka muuqaalka like subscribe maca salaama wa shuufakum fi anime jay